maansadii Ismaaciil ee gumaysidiidku uu ku weynaa waxa ugu caansan wuxuu tiriyay dabayaaqadii 1920-nadii markii Talyaaniga, Ingiriiska iyo Xabashidu ay dhulweynaha Soomaalida intay saamiga ku dhufteen ay soohodimaha u kala yeesheen. waa markii qabiil walba oo meelahaas wax ka degi jiray loo sheegay dawladda uu raaciyaheeda yahay iyo kolkuu xoolaha daaqsanayo dhulka qaybaha looga ogol yahay iyo meelaha haddii roob kasta ku da'o aanu cag soo dhigi karin xoolihiisana aan lagu arki karin. waxay ahayd xaajo ugubaho si xun u saamaysay reer miyigii dhulkooda meeshii ay doonaan ka degi jiray, torarkii ceel iyo casin iyo halkii daaq iyo biyarahaba aan kala lahayn jirin. waxay ahayd arrin si gaara u danaqday Ismaaciil oo hubay markii ay daraawiishi dagaalamaysay inaan gumaysigu waxaas oo kale ku dhici kari jirin. dabadeed maalin maalmaha ka mid ah ayuu is arkay hala aan tiro badnayn isaga oo ku horeynaya meel aan weligeedba cidigeel u foofsan, meel aan lagu arag geed sare iyo geed hoose waxay halay afka la laacdo. waxayse ahayd meesha keliya ee xoogagii kala qaybsaday ay qoladiisa dhulka uga ogolaayeen. sidaa darteedna wuxuu ku qasbanaa isaga iyo geeliisuba inay meelahaas uun ku ekaadaan. runtiina dhulka wuu yaqiino barimadii hayadiga iyo daranta lahaa garab carrow ayay u jiraan, geelase ma geli karo. wuxuu ka baqayaa inta seeragoys lagu xukumo inba lagala wareego. markaas baa isaga oo dhayga dhabanada la haysta waxaa soo agmartay hal uu jeclaayo markab la oran jiray, caatana la dirganla. laba indhood oo haddiiba ay ilma buuxisay ayuu la raacay. dhab intuu u murugooday ayuu xusuustay muddo aan fogeyn dhulkii baaxadda weynaa ee daraawiish iyo fardaheeda looga wada giigay, beledweyne iyo inta badan gobolka Shabeellaha Sare, qoraxay iyo dhammaan geyiga ciideed, hawd iyo nugaal oo idil, sanaag iyo maakhirkoos, gudba ayl iyo badweynta ilig daldala. intaas iyo waxaa dhul u dhaxeeya markii ay ka tagin jireen ayuu garwaaqsaday. dabadeedna isaga oo laabta ka ooyayay ayuu intaa hashii ku halqabsaday wuxuu tiriyey tixdan uu ku cambaaraynayo Soomaalidii gumaysiga u jeclay isuna dhiibtay. wuxuu yidhi, markabee dalkii waxaa bannaan inaadan doonayn dugsi kulula doombiralay iyo dagalkii reen weyne daroornimada laantii lahayd laysu dacadeeye docmiya toomihii duri ahaa laga dugaagow iyo daara iyo bangala miiran bay inagu dayreen. markaan diliili jiray waadigii damal ka weynaa ee daliigahana kurus baa ahaa, duudkan feensama ee dararna waa lahay aada markaha daafta marisaaye dulla cadcadaaf waxaan kuugu furay dan iyo caalwaaye muslimka daacad dhiibtaa ku baday maanta duluglaysa diqda qaayib awrtana la daaq deeq allaad sugaya. Soomaalidii reer miyiga ahayd dhulkii ay daaqsan jirtay in lagu ciriiriyey waxaa uga daraa soohdimihii loo kala yeelay. waxaa uga sii daray maamuladii gumaysigu markay geelii usoo dhigteen, dadkiina ku soo rogeen waxaa xaraashka la yidhaahdo ee ciqaab wadareedka aynu sabankan ku tilmaano. ninkii mindira ama xoolo dadow soo dhaca isaga oo qurihii falkaas mas-uul kama ahayn waxaa loo aanayn jiray qoladii uu ka dhashay. markaas buu maamulkii Ingiriisku geelooda ka soo dhici jiray. maantaas buu Ismaaciilna geeliiba nacay. tuldihii awalba iska yaraa ee uu haystayna haweenay miyara ah ayuu yarad uga bixiyey. oo muxuu ku falayaa marba hadduusan isagu u talinayne goortii la rabo lagala wareegi karo. intuu lo iyo ari tabcaday ayuu labadoodaas xoola kaga kaaftoomay. dharaar dambe isaga oo sodcaal ah ayuu la soo joogsaday nin la oran jiray diiriye xiiday. intii ay iswaraysanayeen ayuu ninkaasi hala irmaana oo agtooda daaqaya intuu haruurgaal ka soo buuxiyey ku yidhi, adeer caanaha dhan aada sii socotide caanaha geela ma dhamo ayuu ugu jawaabay intuu bilihii dhinaca isaga riixay. diiriye oo waxba garan la ayaa kolkaa weydiiyey, oo adeer maxaad caanaha geela ku nacday?
markaas buu isla goobtii wuxuu ka tiriyey tix aan guubaabo u maleeyey oo uu soomaalida ku dareensiinayo sida ba'an ee xorriyadoodii loo weysiiyey tixda oo dheer darteed ma wada marin karaynee tuducyadeeda halqabsigana waxaa ka mid ahaa rag ninkii xaraga hawkiyaba hoos ninba u ridee hawraartu waa u wada jirtaa hadalku reer gaale hoog lama qarsado waana taa heetis loo faqay hawadiisa dhigay geel markii loo habsaday cayne diiriyow haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman horweyn moodhar hawd iyo nugaal daba higoonaayo oo hadal ku siman fooqa wiil ka hindisoonaya hantidiisa iyo waa bilaash hiba nin moodaaye diiriyow haruubka iga qaad yaan huqduu dhiman heensaha intaan daba sideen horar ku qaadayey aan kii hayaba dhaafin jiray kama haraadnayne hadduun baan hawaarsaday sidii habaryartay dhoole diiriyow haruubka iga qaad yaan huqduu dhimana. dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo joogo.